kooxda islaamiyiinta ee Xamaas ee ka dagaalama dalka Falastiin ayaa markii ugu horeysay bayaan aan hore looga baran soo saaray. Waxaynu warbixintan ama falanqeyntani ku dul istaagi doonaa maxaa uu salka ku hayaa bayaankani. dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta ee Falastiin ee Xamaas ayaa soo saaray bayaan ay Iiraan uga digayaan inay ka fogaato amaba ay bartilmaameedsato dalalka deriska la ah, iyadoona sidoo kale xaqiijisay xuquuqda Tehran ay u leedahay inay iska difaacdo Israa'iil iyo Mareykanka. codsi naadir ah. Xamaas waxay sidoo kale ku boorinaysaa bulshada caalamka inay ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka bariga dhexe ee ka socda tan iyo markii uu bilowday 28 February, iyadoona xaqiijisay xuquuqda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ay u leedahay inay ka jawaabto gardarrada, iyadoona la raacayo dhammaanba xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. dhaqdhaqaaqu waxa uu ugu baaqayaa walaalaha Iiraan inay ka fogaadaan bartilmaameedsiga wadamada deriska la ah, ayay Xamaas ku tiri bayaan ay soo saartay codsigeedii ugu horeeyay ee dadweynaha Tehran ku wajahan. Xamaas oo dagaal kula gashay Israa'iil Gaza ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa socda sidii isla markaaba la soo afjari lahaa. kooxdu waxay hore u cambaaraysay dilka hogaamiyihii ugu sarreeyay Iiraan Cali Khamenei maalintii ugu horeysay ee dagaalkaasi, iyagoona ku tilmaamay dambi bahalnimo, iyagoona si cad u qiray taageerada muddada dheer ee uu hayay hogaamiyaha. waxa uu taageero siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo mid militariba siiyay ujeedadeena iyo iska caabinteena, ayay dhaqdhaqaaqu sheegeen wax yar kadib dilkii Ayatollah al-Khamenei, iyadoona ay wajahayso awood sare oo dhanka hubka ah oo ay leedahay Mareykanka iyo Israa'iil. Iiraan waxay ku argoosatay weeraro gantaal ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo ay ku qaaday ugu yaraan 10 wadan. Qatar waxay sheegtay inay qabatay 2 gantaal Sabtidii kadib markii qaraxyo laga maqlay caasimadda Doha. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen inay ka baxeen meelaha qaar. baaqa Xamaas ee Iiraan ayaa imanaya iyadoona xulufada ay kooxda hubeysan ee Lubnaaniyiinta Xisbullah ay mar kale isku tuureen colaadda, iyadoona boqolaal gantaal ay ku riday Israa'iil isla markiiba kadib markii dagaalku qarxay. Xisbullah ayaa dagaalka gashay kadib dilkii Khamenei, tan iyo markaasi weerarada Israa'iil waxay ku dileen ku dhawaad 800 oo qof oo Lubnaaniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi. Qatar iyo Turkiga codsiga Xamaas ee ku aadan Iiraan inay joojiso bartilmaameedkeeda dowladaha gobolka ayaa ah mid la taaban karo, maadaama Tehran ay muddo dheer ka mid ahayd taageerayaasha ugu muhiimsan ee kooxdan. falanqeeyayaashu waxay ku qiyaaseen Iiraan Xamaas inay siin jirtay $10 milyan oo dollarka sanadkii intii uu xilka hayay Khamenei. Iiraan waxay taageerada kooxaha Falastiiniyiinta ah intii uu hayay Khamenei. Iiraan waxay taageerada kooxaha Falastiiniyiinta iyo sida Xamaas u arkaysay tiir dhexe oo ka mid ah istiraatiijiyada gobolka. dhanka Israa'iil iyo xulufadeeda, dhowr dowladood oo Sunni u badan ayaa sidoo kale xiriir la lahaa Xamaas, gaar ahaan Qatar iyo Turkiga. Qatar waxay ahayd taageerada dhaqaale ee muhiim u ah ee lala xiriiriyo Gaza intii uu jirtay xukunkii Xamaas. maalgelinteeda lagu tilmaamay gargaar bini'aadanimo ama dib u dhis daboolaya mushaharaadka shaqaalaha rayidka ah, shidaalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. dadka dhaliila ayaa ku doodaya maadaama ay Xamaas ay maamuleysay dhammaanba Gaza ilaa iyo dagaalka laga bilaabo dhulka Falastiiniyiinta Oktoobar 7, 2023. qaar ka mid ah gargaarka ayaa si dadban u xoojiyay awoodda siyaasadeed ee kooxda. Qatar sidoo kale waxay martigelisay hoggaanka siyaasadeed ee Xamaas ee Doha, taasi oo u ogolaatay kooxda inay xiriir caalami ah la yeelato oo ay ka qayb qaadato wadahadallada iyo dadaalada dhexdhexaadinta. dhanka kale, Turkiga waxaa inta badan uu bixiyaa taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed halka uu ka bixin lahaa
maalgelin toos ah oo ballaaran. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Ankara waxa uu si hadal iyo xidhiidh ah taageerada Xamaas u muujiyay, martigeliyeyna booqashooyin ay madaxdu ku tageen Turkiga. hadalkani Xamaas ayaa kusoo beegmaya xilli xasaasi ah, waana markii ugu horeysay ee bayaan noocan oo kale ay soo saaraan kooxaha Xamaas ee Falastiiniyiinta, kaasi oo dhinaca nabadda u jiidaya dagaalada iyo sidoo kale colaadaha bariga dhexe ee xilligan ka